kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba daawadayaal goob walba joogtaan iyo si walba oo daawanaysaanba halkaas tooskana la socotaan waa Somali Voice TV fadlan haday tahay marka kugu horeysay wax ka codsanayna subscribe noo sarto caawa waad qiyaasi kartaan dabcan hadii calamadan aad aragtaan barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay waa 26 June waa habeenkii ama xilligii ay xornimada qaadatay Soomaaliya dabcan caawa islii dad badan ayaa soo baxay oo u dabaaldegaya dabcan xornimada Soomaalida ay qaadatay dareenkoodana dabcan waa idin la wadaagi doonaa barnaamijkii intuu socdana dabcan waxaad ku daawan doontaan waxyaabo badan oo xiiso badan oo isla markaasi aan idin kaga soo tabin doono si toos ah goobta ay dabaaldega ka socoto ee xaafadda islii aniga Cabdi Ciise idin la socodsiinaya daawadayaal waxaan leeyahay isla socod wanaagsan ku soo dhawo Somali Voice TV adigoo ku bilaabaya magacaada caawa waa 26 June dabcan waa isla wada garanaynaa waa maalinka Soomaaliya xornimada qaadatay waa sida dareenkaaga magacaadana ku bilow magacaygu waa Cabdiraxmaan Xasan nin Soomaaliyan ahay oo Soomaalnimada ay ku dheertahay oo nin dira oo magac maskiin hakeen mufad Soomaalina abeed oo dir uu yahay maqlaysa damirkeeda caawa waxa la soo koobi kara magaca dabcan waaya badan baa u soo nooleed way aragna waa tahay xornimadii qaab aankee ayay adiga kula tahay oo macnaha ii sheegaysa xilligaas isaga ah hadii aad sheeko iyo aad goobjoog intuba u ahayd xilliga aniga sheega dawladnimo ajirti waxaan hadda leeyahay county waxaan reer iyo Puntland waxaan kuma jirna Soomaalinimada mar hal lagu waa hal aaba hal hooyo weeyaan waa uliya diir marlaysa waa abti awoowi adeer waxana kala bixinay ma garanay waxna kala bixiyay caawa maxaa marka waayay fursadan adigoo uga faa'iideysanaya Soomaalida ku daawanayso hawada u marinaysa waxaan u marinayaa Soomaaliya aamudoono aan iska dhabna wax la yiraahdo reebel arrintu waa taas okay aad iyo ma san tahay waxaan ku leeyahay aniga sidoo kale tahambalyo heesta caalamka ma noo tuuri kartaa ma taas waa noo bari ku soo dhawo Somali Voice TV adigoo ku bilaabaya magacaaga caawo waa sidee dareenkaaga caalamka quruxda badnaan oo ku libsanta dabcan waa dhawahay magacayga waxa waa Muniira Cabdisalaan Cali cawada waxa uu soo baxay inaad dabaaldego u dabaaldego 26 June ee tahay xornimada maalinta ee Soomaaliya qaade waana ku faraxsanahay dhammaan Soomaalida meel walba dunida dacaladeeda ee ku nool tahana aad ugu hambalyeynaya Soomaaliya ha noolaato aad iyo aad u maasantahay walaashay sidoo kale anigana caawa hambalyan ku leeyahay maadaama aan Soomaali ahay laftirkii hambalyan ku soo dhawo Somali Voice TV adigoo ku bilaabaya magacaaga caawa waa 26 June dabcan waxa uu dabaaldegaysaa maalinta xornimada ay qaadatay Soomaaliya waa sida dareenkaaga adigoo ku bilaabaya magacaaga ما شاء الله مقعي وحسين محمد خير كله دلك نيروبي قارهان مقالة إسلي وحنكون بلاها مقعي حسين الله waayo dareenkay caawa lama soo koobi kara aad iyo aad ayaan u faraxsanahay wax badan aan soo sugeynay dadkana arkayso dhamaantood waxay caawa u soo jeedaan xafladda weyn ee maaradaay 26 June waayo ilaa caawa dadka inay seexanina aaminsan ilaa caawa 8 saac ay soo joodayaan
وما شاء الله درين كان آدي آد بوكعسين لما سو كوبي كرو سومالي دمان إلا بريسان يدو بلدقان حنبلي أنا دمان سومالي ده حنلو ولا ولي رجل الوزراء عصب إمارة هاي نعاو كسو هجاجي لا سحيتيسا والسلام يا هرس عيان لي هاي إلهي إمارة هاي عدو قادنا الله كاقبته حرنا وسعو إمارة هاي ونكسور دبينا ما شاء الله. Thank you so much مدن وما سنتها. waayahay wali waxaan ku guda jirnaa daawadayaal oo si toos ah aad nagala soconaysaan xafladda dabaaldega sanad guurada ee samoka Soomaaliya xilliga xornimada qaadatay gabdho calaamada qurux badan ku libisana agteeda ay taagan yihiin adigoo ku bilaabaya magacaaga ku soo dhawo Somali Voice TV waa sida dareenkaaga caawa waxay u dabaaldegaysaa aan filayaa xornimada Soomaaliya waan dhawahay dareenkayga lama qiyaasi karo caawa waxaan u dabaaldegaynaa 26 Juun oo maalintii Soomaalida ay qaadatay xornimada maasha Allah Soomaaliya oo dhan waxaan leeyahay hambalyo okay kuwa ku daawanaya maxaa leedahay ayaga daawanaya waxaan leeyahay caawa waa 26 Juun calanka kor u qaada aad iyo aad ma santahay shaqal thank you ku soo dhawo Somali Voice TV adigoo ku bilaabaya magacaaga waa sida dareenkaaga caawa 26 June ayaa dabcan u dabaaldegaysaa san jaalay bismillaahir rahmaanir rahiim waa Yunus Ahmed Show waxaan joogaa Nairobi xaafad Isli horta laba jeclaalahay macna caawa soo dhawo maadaama aan gaarin xornimada laas caawa ay farxad ii tahay maadaama xornimada caawa ka qayb galay anigoo macna garaad yaad leh oo ma caawna joogo hambalyan leeyahay dabcan Soomaalida kala tan maxaladaha Soomaalida kala tan macna kaligiin waan hel dabaaldegona dal baajog waa ku dabaaldegana ilaa taqoon Soomaaliyan aanay maalinka xornimada waa midnimada aan qaadan heesta calanka ma noo qaadi kartaa heesta calanka miseesta heesta calanka heesta calanka aad jeceshahay xornimada aan qaadaa goormaan la naanayay lixdankii lugooyadii la daysay lixda labaantanka Juun goormaan la naanayay lixdii saac goormaan libaanayay koodii luuliyo laba midoon ku soo dhawo saaxiib Somali Voice TV adigoo ku bilaabaya magacaaga waa sida dareenkaaga caawa 26 June maalintii Soomaaliya xornimada qaadatay ayay ku beegan tahay haddaba dareenkaaga noo warbixiyo magacaaga ku bilaabaya صاحب معي وعبد الله علي درينك يا وقت لمسوا كوي كراعه ما شاء الله دلي يدب الصومالي ما بيجكت وسلامة عليه همبليو صلاة إن شاء الله صلاة قرق وعمل له وعلى النبي ومدنا أورط الله كبير الله مدي كلنا وزراء عصبنا وعن سلامة يعني أنت كمان همبلينا وهاي وقتي حريتك سوى يعني همبلي الله sidoo kale taambaliyan kule aniga laftirkii ayaa baasantahay ku soo dhawo saaxiib Somali Voice TV adigoo ku bilaabaya magacaada caawa waa sida dareenkaaga 26 June ayaa ay ku beegan tahay waa maalintii xornimada Soomaaliya ay qaadatay waxaan ku bilaabaya magacayga waxaa la dhahaa Mukhtaar Yuusuf Saalax caawa aad baan u faraxsanahay anoo Nairobi joogo waxaana Soomaaliya isku soo baxday 26 June ay u dabaaldegayaan oo ku faraxsanahay dareenkaygana lama soo koobi karo aad iyo aad baan u faraxsanahay Soomaalida kale waxaan hambaleyna ilaa waa ka bari faan biili la gaaro saan dabaaldeg wada aad iyo leeyahay waa ma santahay hambalyan kule anigana ku soo dhawo Somali Voice TV saaxiib adoo ku bilaabaya magacaada uniformka calanka Soomaaliya wadata dabcan waxaan filayaa inaa caawa 26 June isku soo diyaarisay inaad u dabaaldegto haddaba waa sida dareenkaaga ما شاء الله horta waan ku faraxsanahay dabaaldegkan aad iyo aad oo inkastoo wadankeena maaragtay oo dabaaldegi Soomaalida maxaa hambali u diraysaa wallahi waxyaalo fara badan inaan u hambaleeyay aad u jeclaa maxaa leedahay Soomaalida caawa ayaguna ku dabaaldegayaan horta aad iyo aad horta waa u hambaleeyay waqtiga la joogo caawa waa xilliga Soomaaliya xornimada qaadatay ma ku faraxsanayn yahay adiga dareenkaaga aad iyo aad walaa waan ku faraxsanahay horta taas maxaa u diraysaa Soomaaliya marka inaan horumar gaarto horumarkeedana kor u kaco shantaas sano sida maaragtay horaan oon ku joognay nabadan ku joognay horumarkeena hore u socday inuu shantaas sano soo socotona horumarkeena saas u ahaado aad u maasantahay hambalyan kule anigana ku soo dhawo Somali Voice TV adigoo ku bilaabaya magacaaga caawa waa sida dareenkaaga calanka quruxda badnaan dabcan madaxa ku wadataa والله ما شاء الله ملسو كوبي كرو درينكيغا مغاعي waxa la yiraahdaa Cabdikariin Abuukar ما شاء الله وku faraxsanahay Soomaaliya sanad guurideeda ما شاء الله إذا soo dhaweeyay Soomaalida ku daawanaysa maxalada waa idin salaamaya farxad wanaagsan caawa waxay ka shidan tahay Isli ما شاء الله ayagana hambalyan leeyahay Soomaalida oo dhanba galay dibad meel walba jooga thank you sir soo dhawo